galab wanaagsan waxaan ahay Zaki Hiraale masaajidu alaaba ma ahan goobo laga fisho in lagu dhibmuto gaaridooda marka laga reebo hal masaajid oo mar walba oo roobab ka da'an magaalada ay ku dhibmutaan jamaacada masaajidka balse hadda jamaacada masaajidka ayaa qaadaysa talaab ay ugu hortagayaan in mushkiladaasi xal u helaan Abdullah Yusuf Aadan ayaa hadaba inooga waramaya masjidkani waxa uu sida masaajidda kale ee caasimada bulshada u hayaa adeeg cibaado oo dadka ku xeeran dhinacyadiisa ay uga soo aadaan laakiin mar walba imaatinkiisa uma sahlana jamaacada waxaa jira waqtiyo adag oo ay ku dhibmutaan soo gaaristiisa waana xilligan oo kale marka la gaaro xilli roobaadyada goorta ay dareemaan culayska balse gugii labaad oo xiriira waxaa jira ifafaalo ay jamaacada kaga hortagi karto hubaal la'aanta ka haysata soo gaaristiisa tanina waa xalka muuqanaya oo ay ugu yaraan ku dhimanayaan caqabada haysata kaabada idin muuqata ayaa si kastaba jamaacada u fududeynaysa inay ku soo tallaabsadaan marka biyuhu fariistaan dhinacyada masjidka si ay u dukadaan waxaa loo arkay xalkii ugu macquulsanaa oo ilaa iyo hadda bulshada deegaanku ay kaga gaashaantaan mushkiladaha ku soo noqnoqonaya gu walba oo la gaaro hadda dadka deegaanka ayaa roob iyo roob la'aanba la qabsaday adeegsigeeda waxaana ay sidoo kale saashay inaysan lumin la tukashada jamaacada dadka deegaanka ayaa si kastaba kalsooni in ka badani ay buuxisay kaalin caadiyaal ah loona dhisay waqtigii ay ugu baahida badnaayeen marka laga hadlayo dhiiqada iyo wasaqda ka dhalata curashada roobabka magaalada ma lahan tiro xaafad walba iyo jid kasta oo aad marto la yaab ma lahan inaad ku aragto biyo fariisad badan laakiin in yar ayaa awooda inay isaga timaado xal u raadintooda si kastaba fikradda helidda dhismaha kaabadan ama buundadan yar waxa ay timid markii mid ka mid ah barayaasha dugsiyada iyo ardaydiisa ay ku adkaatay inay soo ajiibaan aadaanka salaadaha si ay ula tukadaan jamaacada masjidka ka baaraan degid dheeri ah kadib waxa uu la yimid fikraddan cajiibka ah oo ay mahdiyeen bulshada masjidka culusow waxa uu ku caan yahay biidegeen xilli walba oo roobabku ka curtaan caasimadda taasoo curyaamisa shaqadiisa barta uu laamiga kaga yaal ayaa ugu yaraan ugu wacan mushkiladda haysata waxaana si kasta oo la isugu dayay in dhismihiisa sare loogu qaado la awoodi karo in laga ilaaliyo biyaha ku soo fataha xilliyada roobka jamaacada masjidka ayaa dhowr jeer ka codsaday dowladda iyo gobolka inay xil muuqda iska saarto mushkiladda haysata haddii deegaan walba uu xalka mushkiladda haysata aanu cid kale uga marti noqon oo uu ugu yaraan xil iska saaro la tacaalideeda waxaa lagu guulaysan karaa in laga adkaado dhibaatooyinka soo laalaabma mar walba oo la gaaro xilliyo cayiman oo sanadka ka mid ah haddiise nidaamka dawliga ahi oo qura la sugu fulinta iyo wax ka qabashada duruufaha nagu gadaaman waxa ay mar walba agteena ku ahaan doonaan marti aan la jeclayn iyo masiibo joogto ah